الحمد لله. إن شاء الله تعالى waxaan jeclahay inaan ka hadlo erayo kooban oo ku saabsan maamulka wanaagsan. Markaan maamulka hadlayo wuxuu noqon karaa xukuumad ama dawlad, wuxuu noqon karaa shirkad, wuxuu noqon karaa dukaan ama meherad, wuxuu noqon karaa goob waxbarasho. Waxaan doonayaa inaan soo gudbiyo insha Allah ta'ala qodobo looga baahan yahay qofka maamulka ah in dadkan shaqaalihiisa uu kula dhaqmo. waxyaabaha looga baahan yahay aad bay fara badan yihiin, laakiin qodobada muhiimka ah ee biyo kama dhibcaanka ayaan soo gudbinaya. Markaan soo gudbinayo cid gaar ah uma jeedo ama cid gaar kama hadlayo, laakiin waa waxa uu cilmigu ina farayo waxaan soo gudbinaya. Maamulka qodobka koowaad ee looga baahan yahay waxa weeye cadaalad. cadaaladdu waa shay aad u muhiim ah. Rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxaa la faray inuu yiraahdo wa umirtu li a'dila baynakum, waxaa la faray inaan dhexdiina cadaalad u sameeyo. Ilaahay wuxuu yiri icdilu huwa aqrabu littaqwa. cadaalad sameeya, cadaalad ayaa u dhow alla ka cabsiga. wuxuu Ilaahay yiri inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Ilaahay wuxuu farayaa cadaalad iyo wanaajin. cadaaladda xaalad kasta waa inaad ku tilmaanaata. cidaad jeceshahay iyo cidaad neceb tahayba waa inaanay cadaaladdaada ka qadin. walaa yajrimannakum shana'aanu qawmin 'ala an la ta'dilu. nacaybka cid aad neceb tihiin iyo aad u cadhaysan tihiin yaanu idinku kallifin inaad cadaalad samayn weydaan. marka cadaaladdu waa shay muhiim ah. shaqaalahan ku hoos jooga ee aad maamulka u tahay wuxuu kaaga baahan yahay inaad cadaalad kula dhaqanto. kaad wax isu tihiin iyo ka aan idin wax isu ahayn, kaad saaxiibka tihiin iyo ka aan idin ahayn, kaad jeceshahay iyo kaad neceb tahay, mid waliba wuxuu kaaga baahan yahay inaad cadaalad kula dhaqanto. qodobka labaad, al-amaana. qofkan waa inuu yahay qof ammaano leh. ammaano leh maxaan uga jeedaa? waxyaabo badan ayaa waxay u baahanayaan ammaano. shaqaale ka mid ah shaqaalayaashu hadduu sir kuu dhiibto inaad ilaaliso oo aad ammaanada guddo waa mid waajib kugu ah. haddii maamulkaa sarreeya uu jiro oo shaqaalihiisa aad mas-uulka uga tahay uu la xisaabtamayo, in aad shaqaale walba sidii ilaahay kugu ogaa aad uga warbixisaa waa ammaano. marka lagu weydiiyo kartida shaqaalayaasha iyo dadaalkooda, inaad sidii ugu saxnayd aad uga warbixisaa waa ammaano. maamulka waxyaabaa looga baahan yahay waxaa ka mid ah qodobka saddexaad, asabr. inuu noqdo qof adkaysi badan oo dulqaad badan, oo marka dhibaata ay dhacdo ama mushkiladi dhacdo ama cidi isqabsato isagoo dul qaadanaya, shay kastaba maaraynaya. waa inaanay ka awood badanin caatifadu iyo ficilku, waa inaanay ka awood badan. mar kastaba waa inay maskaxdu shaqaysaa oo u noqdaa qof dhibaatooyinka iyo mushkiladaha imanaya dul iyo ton uu saara leh. qodobka afraad, maamulka waxaa looga baahan yahay inuu in badan ku dadaalo wada tashiga shaqaalihiisa ama ciddan ay hawsha ka dhaxayso oo la tashanayo. waa inuu aad uga fogaadaa keli talisnimada. taladuna waxay yidhaahdaan almashhuuratu raaxatun linafsika wa tacabun ligayrika. taladu naftaada raaxa ayay u noqonaysaa, gayrkaana waxay ku noqonaysaa tacab iyo daal. wax qofkani uu tijaabiyey oo ku daalay oo ku dhibtooday ayuu midhaheedii oo bislaaday uu ku siinaya. waxaa laga yaabaa maamulku waxyaabo badan oo marka aanu xasuusnayn shaqaalihiisan uu la tashanaya inay xasuusiyaan. qorshihii ama go'aankii uu qaadan lahaana caqabado fara badan oo ku xeeran loo sheego si uu uga noqdo. maamul waxyaabaa looga baahan yahay waxaa ka mid ah oo qodobka shanaad ka dhigaya in waayo aragnimadiisa uu u gudbiyo shaqaalihiisa oo aanu arrinkaa kaga bakhaylin. waxyaabihii intuu maamulka ahaa soo maray ee uu khibradda ka kororsaday inuu iyagana gaadhsiiyo oo uu sheego. maamulka waxaa loo baahan yahay shaqadan haddii uu isagu ka tago inuu noqdo nin dad soo saaray oo ciddan shaqaalihiisa ah ay khibrad badan iyo aqoon badan ka faa'iideen oo kaalintaa uu baneeyey ay buuxin karaan. maaha in khibradda uu kala bakhaylo, maaha in shaqaalaha uu cadaadiyo oo uu arko dad mustawa ahaan ka hooseeya, garaad ahaan ka hooseeya. maaha inuu soo arko, waa inuu gacan qabtaa oo khibradda iyo aqoonta uu leeyahay ee maamulka uu leeyahay uu wax ka siiya. qodobka lixaad, maamulkani waa inuu noqdaa qudwa, mid lagu dayan karo. waxaa lagaga dayan karaa shaqo wanaagga lagaga dayan karaa. xeerka iyo qawaaniinta uu soo dejiyey u hoggaansankooda waa in isagaa lagaga daydaa. tusaale ahaan shaqaalihii wuxuu yidhi shaqada waxaa gelaysaan 6 oo buuro ah, waa inuu isagu 6 yimaada ama uu ka soo horeeya. taasi waxay keenaysaa in lagu daydo. hadduu isagu shaqaalaha ku lahda 6 idinku kaaleya aniguna 8 baan imanaya, dee mid saxa noqon mayso. baa tajuru wa baa'uka laa tajuru wey.
bacdayduna waxbay jirtaa taaduna waxba ma jirto. waxyaabaha looga baahan yahay waxaa ka mid ah inuu noqdo maamulku qof qorshan leh, oo shaqadan iyo hawshan uu ku jiraa waa inay tahay mid u qorshaysan, jadwal leh, habaysanoo nidaamsan. waa inuu maamulkani jecel yahay shaqadiisani inay sida ugu wanaagsan u fusho maalin kasta. qorshayaal maalinla ah waa inuu leeyahay, kuwa billa ah waa inuu leeyahay, kuwa sanadla ah waa inuu leeyahay. shaqadiisu waa inaanay noqon fawda, mid iska socota oo daala dhacaysa oo kufayso kacaysa, waa inaanay sidaa noqon. qodobka 7 waxaa looga baahan yahay maamulka inuu yeesho go'aamadiisana aanu jebinin, iyadoo maslaxad iyo dani keentay mooyaane. go'aan hadduu gaadho, go'aankiisu waa inaanu si fudud aanu ku jabin. go'aanka markuu gaadhayana saan kusoo sheegay koley tashi iyo isla eegid badan ayaa ku jirtay. laakiin maamuluhu hadduu jirjiro la noqdo, maanta go'aan buu soo saarayaa, go'aankii wuu fashilmaya, ma fulinayo. mid labaad buu soo saarayaa, kiina wuu fashilmaya. mid saddexaad buu soo saarayaa, wuu fashilmaya. maamulkaas wuxuu noqonayaa maamul faashila, wuxuu noqonayaa maamul aan lahayn go'aan uu wax ku fuliyo. marka waxaa looga baahan yahay inuu go'aan yeesho, uu wax ku kala jaro oo wax ku fuliyo. maamulka waxyaabaha looga baahan yahay waxaa ka mid ah inuu noqdo maamulku hal abuur, mid wax curin karaya oo shaqadan waxyaabo badan kusoo kordhin karaya. taana waxay ku imanaysaa inuu ka faa'iidaysto dadka ay isku shaqada yihiin. tusaale ahaan dugsi buu maamulaa. dugsigan waxyaabaha nashaadaadka iyo horumarka waa inuu yahay hal abuur. inta uu garanayo waa inuu fuliyaa, inta ka dhimanna iskuullada kale ama dugsiyada kale waa inuu u doontaa oo uu farsamadii iyo habkii ay wax u wadeen iyo waxyaabaha ardayda ay siiyaan waa inuu ka faa'iidaystaa. waxaan sheegayaa hadda tilmaamo lagu garanayo maamulkani inuu wanaagsan yahay ama inuu maamul liita yahay. waata koobaad, maamulku hadduu shaqaalihiisa ku kalsoon yahay oo shaqada ay qabanayaan uu ku kalsoon yahay, waa maamul guulaystay. haddii laakiin uu yahay shaakun, mid shakisan, oo shaqo kastoo ay qabanayaan uu ka eegayo dhanka xun, uu isleeyahay wallahi waxbay qaseen ama waxbay kharribeen, maamulahaas maamula hagaagsan maaha. 2, maamuluhu hadduu qiranayo qaladka uu galo ama marka arrin lagu fashilmo uu mas-uuliyaddiisii dusha saaran karo oo odhan karo waxaasaanu isniri sameeya, waxaana waanu ku fashillo way naga xumaata, oo odhan karo waxaasaanu qorshaynay waanu isniri sameeya, wixiina way fashilmeen oo way naga xumaadeen oo saan dooninay may noqonin. waa maamule saxan oo karti iyo awood leh. qaladkaa uu markaa galayna mar dambe ma gelayo oo kuma dhacayo, uu iska ilaalinaya. waxay yidhaahdaan alfashalu miftaaxu najaax. guuldarrada ama jabku waa furayaasha guusha. khaladkii horaad gashay baad iska ilaalinaysaa inaad mar labaad ku dhacdo. haddii laakiin maamuluhu uu yahay maamule aan ogolayn inuu khaldamo, macsuum sida rusushoo kale, khalad kastuu galana uu shaqaalaha dusha u saaro, wuxuu noqonayaa maamulahaasi mid aan maamule wanaagsan ahayn. maamulaha wanaagsan astaamuhu leeyahy waxaa ka mid ah guusha u soo hoyata waxa uu wax ka siiyaa ama badankeedaba uu u hibeeyaa shaqaalihiisa. ma aha isagu mid yidhaahda waxaan anigaa sameeyey, anigaa fuliyey, anigaa sidan qabtay. anaaniya kuma jirto maamulaha wanaagsan waxaa lagu gartaa kulamadiisu ama shirarka uu qabanaya way kooban yihiin, mawduuc gaarana diiradda ayuu saaraa. wax kasta oo la kulma shir kama qabto. waxyaabaha qaar buu si gaara u xalliyaa, waxyaabaha qaar buu awaamir shaqaalihiisa faraa. wixii lagama maarmaanana shir ayuu isugu keenaa, qodobada laga hadlaya ay cad yihiin, wakhtigiisuna uu cad yahay. haddii laakiin maamuluhu uu noqdo mid maalin kasta shir qabanaya, shirkiisaasi wuxuu noqonayaa mid bilaataya ah, wuxuu noqonayaa iska fadhi ku dirir ama shirka caadiya. maamulaha wanaagsan ma ilaawo guusha ay shaqaalihiisu gaadhaan. qof hadduu shaqo wanaagsan qabto wuu dhiirigeliya, ama waxa siiyo ama ha amaano ama abaalkaa ha haye. waxaa laga yaabaa qof aad kelmad ku tiri oo aad ku tiri arrin wanaagsan baad maanta samaysay, saayo saasaad samaysay, aad baan ugu farxay, in uu kasii badiyo wax aanad filayna uu ku dhaqaaqo. haddii laakiin qofkii markuu wax wanaagsan sameeyo aanad dhiirigelintii aad kala baqaysho, waxaa dhacaysa hadhow toole inuu shaqadii u joojiyo ama wanaaggii aanu sii wadin. maamulaha wanaagsan waa mid si wanaagsan u dhegaysta shaqaalihiisa. cabashadoodu dhegaysanayaa, wixii isaga kula talinayaan buu dhegaysanayaa, wixii shaqadu ay ku horumarayso ayuu dhegaysanayaa, wuu qoranayaa. haddaad aragto laakiin maamul shaqaalaha caburinaya oo aan talo u ogolayn, cabashana u ogolayn, inay hadlaan ay garnaqsadaan aan u ogolayn, maamulkaasi maamulkii la rabay wanaagsanaa maaha. maamulaha wanaagsan tilmaamaha lagu garto waxaa ka mid ah inay tahay laabtiisu mid ballaaran oo wax badan qaadi karta, culays badan xambaari karta,
in badan dul qaadan karta cid hadday ku qaldanto aan argoosi kula degdegayn tilmaamaha aadka u muhiimka ah ee looga baahan yahay maamulka wanaagsan waxaa ka mid ah alibtisaamatu daa'ima mar kasta inuu noqdo maamul dhoola cadaynaya shaqaalihiisa markuu la kulmo waa inuu dhoola cadaynaya haddii laakiin uu cabuus yahay mid wejigiisu uu tuban yahay oo mar kastaba murugaysan oo aad moodo in mar kastaba yani cuqdadii ay ka buuxdo maamulkaasi maamul wanaagsan ma aha maamulaha wanaagsan waa ka garab taagan mar kastaba shaqaalihiisa xaaladahooda ka warhaya duruufaha ay ku jiraan ogsoon waxyaabaha ku gadaaman garanaya wax la qaban kara intuu awoodo aad iyo aad baad umahadsantihiin sida wanaagsan aad u dhegaysanayseen kelmadda kooban ee ku saabsan maamulka wanaagsan iyo waxyaabaha looga baahan yahay iyo khaladaadka ay tahay inuu iska ilaaliyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa inoo barnaamij kale insha allahu tacaala sidaa iyo nabadgelyo